mucaaradka ee wadani iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn ayaa baaq nabadeed u diray laba beelood oo walaalo ah oo dirir colaadeed ku dhex martay deegaano hoos yimaada gobolka Sool. saaka halkan waxaanu ku kulannay odayaashii iyo waxgaradkii Ceelaf Weyn oo runtii muddo dheer hawsha nabadda ku jiray ilaahayna ku guuleeyey waxaanu ku guubaabinay inay nabaddaasi xoojiyaan oo ay halkaa ka sii wadaan wixii dambena ay ka digtoonaadaan inaan wax dambe aanay dhicin sida ay u dadaalayeenna ay dadaalkii aanay ka hadhin ay u sii wadaan waxa kaloo aanu isla garannay haddaanu nahay xisbiga waddan iyo odayaasha iyo waxgaradka Ceelaf Weyn iyo cuqaasha in aanu halkan uga dirno baaq nabadeed dadka aanu walaalaha nahay ee ku dagaalamaya gobolka Sool runtii waxaanu leenahay ilaahay wixii ku kala dhintay sabir iyo iimaan ehliyadoodii ha ka siiyo wixii dhaawacana ilaahay caafimaad ha ka siiyo inta nool waxaanu ku guubaabinaynaa inay u taliyaan inta nool taladooduna waa nabad iyo walaalnimo arrintan ka dhacday deegaanka maxaan idhaahday bariga koonfurta Lascaanood waxaan runtii soo jeedinaynaa halka ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed anagoo wada jira oo odayaashan nabadda iyo anagoo xisbiga wadanayaba aanu soo jeedinaynaa in arrinta iyada nabad lagu soo dabaalo colaad raagtay oo 2004 bilaabantay bay ahayd maalin meel maraysay maalinba markay soo dhawaato fikta la baxda aad iyo aad baan uga xunnahay runtii dhibaatada dhacday aad baan uga xunnahay cid kasta oo arrinta iyada afad qaladada dhib gacan ku leedahay waxaanu leenahay war aakhiradiina iyo adduunkeena midna uma fiicnaa joojiyo oo dhibka lagu wado dadka laga daayo waa ogno meesha hogal yar baa ka daaday waxay ahayd xareedan in la cabo saaca yar soo baxayna la wada daaqay ahayd oo nabad lagu wada daaqo ilaahayna loo mahadnaqo sidii uu aqal ku sheegay ilaahayna loo mahadnaqo bay ahayd laakiin xisbiga wadani ujeedadiisuna tahay dhiirigelinta nabadda labadayada beelood ee ah habar lamaan aanu qaadanay iyo kuwa iminka dhibtu ka socotee oo iminka islaynaya oo aanu ugu baaqayno haddaanu nahay waayeelka habar lamaan inay dhibtaa maanta ka dhacaysa deegaanka ay joojiyaan wixii dhintay samir iyo iimaan allah ka siiyo wixii bukana wixii ka dhaawacmayna ilaahay caafimaad taama ha siiyo inaanu labada daraf ee isku dilaya gobolka Sool ee walaalahaya ah oo iyana hadda horena dagaalkaasi uga dhexdhacay haddana uu dib u soo noqday waxaanu idinka rajaynaynaa oo idinka baryaynaa ilaahay inuu qalbigeena isu soo duubo oo isu soo celiyo oo nabad iyo naxariis idin dhex dhigo oo colaadda maanta haysaan waxa la yiri colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho runtii raxmad baa ilaahay shubay sida aan warka ku maqlay raxmadda isugu timaadeen ee dhibta ku bilowdeen runtii ma ahayn ina ilaahay ugu mahadnaqdaan bay ahayd ilaahay wuxuu yiri la in shakartum la azidanakum wa la in kafartum in adaabi la shadiid waad aragtaan waxa dhib ina haysta abaarta ina haysata colaada dhibi inagama maqna markii ilaahay naxariista idin shubay waxa ay ina ku mahadnaqdaan oo ilaahay ugu mahadnaqdaan oo dadkiina nabadaysaan oo walaalaysaan oo nimcada ilaahay idin shubay wanaag iyo nabadgelyo ku daaqdaan.